وحاضره لصودا في أقبصهم العيدن كبوليس كصوماليات شقوين آد مهمة أو أي كمديهين وهو وين يهين دبوا إجستا شرعي عيدن كبوليسكا دبوا إجستا حركي عيدن كبوليسكا دبوا إجستا شرعي نبتقليد ودوينكا إيو قاحدة حبرعيدا iyo waajibaadiyada ay hogaamada iyo fadhiyada madaxa bannaan ciidanka booliska ay kala leeyihiin inaan dhamaystirnay oo aanu dib u eegis ku sameeyno waxaan galay shirar waaweyn iyo safarro aanu taageero dib u dhiska ciidanka booliska aanu ugu raadinayno waxaana nooga qabsoomay runtii waxyaabo aad u fiican oo isleenahay maantay قوم بيوتها ومدة سومالية عيدن كبوليسكا وحنا صعوتها دلكو دجال بكجرا دجال بكجرا عيدن كبوليسكو قيب وين أيو كي هاي إسكاشي يو ولا شقين بوحدة إن عيدن كدولة قبلتي ذا كشقية بوليسكا هي عيدن ك سيدقات هوتها براء المارتي أهل قراء بوليسكا فدرالكا إن يصيب بوحدة ولا شقيان oo maaragtay ay isku ujeedo iyo isku hadaf ay kala haadaan ciribtirka iyo la dagaalanka khawaarijta ayaan markasta ku boorinaynay saraakiisha ciidanka booliska waxaana noo suurta gashay inay noqoto mid si hufan shaqadaas loo wada qabto ciidanka booliska waxay ku jiraan mudane ra'iisul wasaare diyaar garow ay u diyaar garoobayaan in ay la wareegaan ammaanka gudaha dalka kadib bixitaanka ama dhimista ATMIS in ay ka qaataan qaybta ayagu ay leeyihiin gutaana waajibaadka qaybsiga bixitaanka ATMIS wixii annaga nagaga soo aaday meel fiican bayna noo maraysaa si ay noola jaan qaadno ciidamada casriga say u shaqeeyaan ama adduunka maanta meesha uu guuray waxaanu diyaarinay ama aan ku guda jirnaa in aan ku sameeyno ciidanka booliska reform dhab ah oo dib u casriyeyna asaguna wuxuu noo marayaa meel aad u fiican waxaana la wadaagi doonaa saraakiisha haddii alla idmo shirkan isugu timid sidaa la wada socotaan waddankeenu wuxuu noqday federaal ciidanka booliska Soomaaliyeedna wuxuu federaaleynta dalka uu u yahay lafdhabar waxaan rabnaa inaan maantay kulanka aan halkan isugu nimid in aynu isla lafagurno kana wada tashano sidii aynu u daadejin lahayn federaaleynta ciidanka booliska iyo qaybsiga tirada cayiman aan maaragtay siyaasad ahaan la isla qaatay in maaragtay ciidanka booliska hadda aynu ka jaan qaadno in ay noqoto mid wax fiican ka soo baxa ka wada tashano si bisil oo maaragtay lahaansho ay ku dheehan tahayna ay saraakiisha iyo mas'uuliyiinta dowlad goboleedyada yimid shirkan iyo saraakiisheenan anagu aan ka mid nahay wasaaradda amniga dhammaanteen inay wada hogaaminayso oo ra'iisul wasaare ku-xigeenkeena uu goobjoog ka yahay inay inoo noqoto maaragtay wada sheekaysi ama dood fiican sidaynu u daadejin lahayn ciidanka booliska labadiisa heer qaybsiga waxa ku filan dowlad goboleed ama caasimad ama aan dhahno dowladda dhexe sida loo kala asteeyay qoondooyinka qayb walba inaga oo ay maaragtay wax kala riixasho iyo wax kala jiidata midna ayna jirin inaan ku salayno sugidda amniga iyo magaalo kasta inta aynu isleenahay amnigeeda way sugi kartaa inaan ku salayno oo uu noqdo shirkeenani shir miro dhal u ah ujeedka iyo hadafka aynu u nimid halkan inuu noqdo wax wanaagsan inuu ka soo baxo shirkeenan maantay wuxuu qarannimadeena ugu fadhiyaa aad wax muhiim u ah tallaabaqaadka dowladiskeenu maaragtay aan isleenahay muhiim bay u tahay inaan shirkan wax fiican ay ka soo baxaan qayb weyn bay ka noqon doontaa marka waxaan rajaynayaa si hufan oo furan inay doodani ay noogu socoto inaan wax caqabada dhinacana aynu arkin
waxaynu leenahay inaynu ka hadlayno inaynu ka wada tashanayno